magaalada Garowe ee caasimadda u ah maamulka Puntland waxaa xarunta baarlamaanka ay ku shiraan ee maamulkaasi la wareegay ciidamo careysan oo ka caawinaya mushaar la'aan bilihii ugu dambeeyay soo food saaray wariyaheena Siciid Soona ayaa Garowe warkan inooga soo diray. halkan aan ku suganahay waa iridka hore ee xarunta baarlamaanka magaalada Garowe waxaa saakadii hore qabsaday ciidamo ka tirsan guutada labaad ee commandoska ee Puntland oo dhowr saacadood muddo gacanta ku hayay xarunta baarlamaanka oo ciidankan oo ka tirsan daraawiishta Puntland waxa ay shalay isaga soo baxeen Bardahumbulo oo galbeed ka xigta magaalada Gaalkacyo halkaas oo bilihii dambe howlgallo dhanka amniga ah ay ka wadeen. ciidamadan oo watay gaadiid kala duwan oo nooca dagaalka waxa ay muddo saacadaha ay gacanta ku hayeen xarunta baarlamaanka ee magaalada Garowe. waxaana qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada oo aan weydiiyay sababaha halkan ay u qabsadeen ay ii sheegeen in arintoodu ay la xiriirto mushaar la'aan ku siman 8 bilood oo wax qarash ah dhanka dawladda aysan ka helin. mid ka mid ah saraakiisha oo diiday muuqaalkiisa iyo codkiisa inaan baahino waxa uu sheegay in dhanka baarlamaanka ay ula wareegeen baarlamaanka oo ka gaabiyay la xisaabtankii dhinaca dawladda isla markaana xaqoodii sidaasi ay ku waayeen. mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Puntland oo isugu jira wasiiro iyo saraakiil ayaa goobta soo gaaray si markaasi ciidanka ay u qanciyaan inay dib ugu laabtaan farsiinkii saaka ay ka soo ambabaxeen. waxaana ciidamadu ay markaasi ka dhagaadeegeen mas'uuliyiinta dawladda oo ay diideen inay gudaha u galaan xarunta baarlamaanka oo xilligaasi ay ku jireen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland. islaan ciise islaan maxamed oo goobta soo gaaray ayaa ciidamada oo u muuqday inay ixtiraam gaar ah siinayaan islaamka ay u ogolaadeen inuu gudaha u galo xarunta baarlamaanka halkaas oo shir ka dhacay daqiiqado gudahood lagu guuleystay in ciidamadu ay dib ugu laabtaan farsiinkii ay ka soo ambabaxeen. gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne iyo duqa degmada Garowe oo kamid ah mas'uuliyiintii hawshan galay ciidamada la xiriirta ayaan wax ka weydiiyay isla xarunta baarlamaanka iyo ku sugan waxyaabaha halkan ka soo baxay iyo waxa ay ku qanciyeen ciidankii halkan la wareegay. waa ku saxayaa horta xarunta ciidanka xarunta baarlamaanka ciidan lama wareegin. xarunta baarlamaanka ilaaladeedii baa joogtay ciidanka ilaalada hadda ka muuqda meesha laamiga kaga beegan iyo dhinacyadeeda baa ciidan ka tirsan ciidamada daraawiishta qayb ka mid ah oo ka soo fawdeeyay si fawda uga soo baxay magaalada Gaalkacyo xuduudda dhinaca xuduudda oo galmudug ay Puntland ku leedahay. halkaasna ciidankaasu gudaha ma aysan gelin waa nimi isla marhaantaana taliye ciidanka xukumay iyo sabab baan la socday amar baa la bixiyay in ciidanka meesha laga qaado ciddi hadal qabtaan xarada tagto dalkuna uusan fawdo iyo shoobar u baahnayn oo aan cid meel haysan kartaa iyo cid meel qabsan kartaa midna aysan jirin iyagu amarkii waa qaateen waana ay guureen. haddana saa u jeedaan waa aragtaan xaruntii baarlamaanka oo deewacaadi oo anaga baa joogna wax dhibaato ah ma jiraan. dadka reer Puntland waxaan u sheegayaa waddanku nabad yahay. baarlamaankii aan ka soo hadlayno wararkii daacadda ah ee baarlamaankii waa la haystaayo telefoonada hadeerba kuwa ku soo wacayeen waa nabad wax sidaara ma jiraan. laakiin mushaar la'aan bay ka caawinayaan wali caawashada anaga ma soo gudbinay anu askarta lama hadalno madaxda aan hadalnaa xariyo aan kala ballanay. laakiin bariyaha dambe waxaa jiray niman siyaasiyiin oo khalkhal siyaasadeed looga soo adkaaday siyaasadda Soomaaliya iyo khalkhal siyaasadeed ka bilaabay magaalada shalay kuwa hadlayay kuwa ka horeeyo qeylqeylnayna waa la sheegayay. magaaladan Garowe waa caasimadii waddanka dad baa degan ummadda dhan bay caasimad u tahay ciidamo ay leedahay. waxaan u sheegayaa in laga daayo khalkhalka amaanka la gelinayo in shoobaraha waddanka laga daayo. haddii la deyn waayo dawladdu faraha ma laabanayso waxayna qaadaysaa tallaabo cad. haddaanu sheegaynaa nin walbana dabku wuxuu gaarayaa gurigiis. ninna uga haybaysan mayno in magaalada nabad ahaato ninna ka baryi mayno magaalada nabad ahaato
ninnana magan ugama ahayn inay garowga ay nabad ahaato ninkii siyaasad rabaayay ha sugo xilligeed ha sugo ninkii wax ka hadlayaay meel laga hadlay leedahay laakiin in laga qaylqayliyo oo la yiraahdo ammaankii baa faraha ka baxay oo loo yeero waxna waa tuhmaynaa iyadana waxaan ka saari doonaa markii baaritaanku noo dhamaado warcad laakiin waxaan u sheegayaa dadka reer Puntland oo gaar ahaan caasimadda jooga in la shaqeeyo dawladda la shaqeeyo in hay'adaha ammaanka la shaqeeyo in ciidamada la shaqeeyo isku meel looga soo jeesto magaaladan muraayada oo qiimaha ugu sareeyo oo Puntland hadda ah intaasaan ku soo koobayaa maxay idin sheegay laakiin haddaad wareysateen maadaama beris wax baa laga hadlayaa wixii hadal 2 saac baan xarada ugu tagi doonaa insha Allah taala waagaas warriga helisa arrintaasna way dhamaatay hadda mana badnayn waxaan saacad ka badnayn bay maartay arrintaas nagu qaadatay inaan dhameystiro ciidamadeena maartay xariyahoodii bay aadeen si aanan ku faraxsanayn bayna ciidankaas meesha u qabsadeen ugana soo bixeen xaruntii maartay aagga ay ku jireen oo furinta ka yimaadeen waana ka warheli doonaa waxaan hadda kula ballanay xaruntoodan kula ballanay hadda ay maartay xaradii ay hore u deganaan jireen hadda meesha dawlad baa ka jidha dawlad maartay ku dhawaad 20 sano maartay dawlad soo jidhay baa Puntland ka jidha tanna waa xarunteedii dadka reer Puntland nama ogola in maartay caasimadda khalkhal la geliyo ama amnigeeda wax loo dhimo ama gareerkeeda maartay hoos loo dhigo oo maartay amni oo u qoran oo yuwanka uga qoran haddeerna waxa weeye guud ahaan magaaladuna amni weeye guud ahaan degmaduna amni weeye Puntlandna amni weeye soo telefishinka Somali Cable